بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan salaamo marka hore ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo ummadda muslimkaaba meel ay joogaan. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. waa maalin farxadeed, waa maalin ciida. Ilaaha ku mahadsan subhanahu wa ta'ala bishii Ramadaan noogu soo dhameeyay khayr iyo maxaan ku iraahdaa fadli. kuwa la xureeyo Allah nagu daro, kuwa naxariista Ilaahay Allah nagu daro, kuwa loo dambi dhaaf Allah nagu daro. ummadana Allah uga dhigo sanad qabow oo horumar iyo amni iyo barwaaqo leh. ummadda Soomaaliyeedna qulubteeda Allah mideeyo, waxa uu wanaagsan qalbigooda Allah ku mideeyo. intaas markaan ka gudbo runtii waxa la soo maray bil barakaysan saan sheegnayba. waa huba dad badan aad uga faa'iideysteen, laakiin waxa la rabaa ciidamada in la joogteeyo. bisha Ramadaan waxa loogu talagalay qofka muslimka inuu zaad ka qaato si sanadkoo dhan oo u haysto awoodaas nuuraaniga oo barakaysan oo bisha Ramadaan oo helayo. marka insha Allah inaan la joojin alla u dhawaashadii iyo khayrkii dadka masaakiinta ana loo kaalmeeyo oo gacan la siiyo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay dadka ku caawiya dadka u baahan caawinta iyo aad u jecel yahay. marka ummaduna waxay ku hormartaa inay isgarab istaagto dadka u baahan kaalmada. marka qof walba ka fikir meesha qofka walaalka uu joogo iyo duruufta haysata dad joogi lahayd maxaa jeclaan lahayd in lagu sameeyo. marka dadka xoolaha haystay Ilaahay oo nicmada siiyay amaanay ku tahay. marka dadka muslimiinta ah ee u baahan inay ku sadaqaystaan. intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo arinta ciida.